waxaan sheekha oo been ku tuhmaynin ma la dhaweedo noo sheegay isagoo ka waramaya nusrada iyo gargaarka ilaahay iyo qaybiyaadka adoomadiisa uu ku hanuuniyo nin wadamadan gaalada kamid ah oo gaal iska ah muslim ba ahayn ayaan isagoo muslim arkay buu yiri oo wanaagsan oo daaci oo markaas aan weydiiyay buu yiri shadku islaamtay maxaa islaamnimadaada sabab u ahayd wuxuu yiri buu yiri islaamnimadeeda waxa sabab u ah Allah markaas aan buu yiri Allah naam ilaahi ba kulligeen yani islaamka nasiyi laakiin yaa sabab kugu ah markaas uu yiri buu yiri Allah way yaa kugu yeeray markaas uu yiri buu yiri Allah wararitaadu waa ajiib leh markaas uu yiri aan ku waramo habeen baan anoo iska jiifan waxaan ku riyooday buu yiri shaydaan eeryanay ibliis eeryanay oo ka cararayo waa ka cararay waa iga daba xararay waa ka naxsanahay buu yiri ilaa aan wabi aan arkay oo iga horeeyo wabigii baan isku tuuray bal inuu iga haray iga ma harin oo iga soo daba galay wabigii saan u dabaalay dhinaca kale uga baxay waa iga daba socda wuxuu ii wadaa buu yiri sidaan arka marka aan dareensanahay ru'yada ama inuu narbu ii wadaa waa ka cararaya waa ka ilaa markaasaan ku soo baxay buu yiri nin wabiga daraftiisa kala taagan qurux badan oo haybad leh kii baan isku duubay gadaal buu imarsaday buu yiri shaydaankeena gacanta uu saa ku yiro waa cararay buu shaydaanka markaasuu yiri buu yiri maxaa ninkan oo narbu ii wadaayo marka gaasuu gacanta isoo qabtay buu yiri anaga jannada isu raacayna inakeen sidii baan soo kacay buu markaan soo kacay ru'yadii anoo garanaya waa soo kacay buu yiri ninkii isaga ahaa sawirkiisii maskaxdayda kama bixin waxaan walwal iyo igu riday buu yiri ninkii inaan arkaan raba habeen iyo maalin ninkii inaan arko xageen ku arka maalin baa ilaahay la kulansiiyay buu yiri ninkii naftirkiisa oo meel wada socda sawaaba isageeba waan isku duubay buu yiri ninkii markaasaan qabsaday oo dhununkaday ninkii wuu yaabay maxaa soo kay duubaysaa miyaa taqaana hawa ku aqaan oo goorma saran waliga kuma aragay ana ku arkay ninkii shaydaanka iga dhixiyay baad shaydaanka sheekadii buu sheegay masaasaha hadaba inakeen kaale masaajidku geey waa islaami sidaan ku islaamay marka ma ilaahay baa ii yeeray mise dad baa ii yeeray ilaahay baa sababna ii aha ilaahay baana ii hanuuniyay ilaahay baana diintiisii waafajiyay ninkii wuxuu noqday markuu sheekhaas u warramayo nin daaci ila Allah buu noqday mar aniga safar baan ahaa mar diyaarad maraykankan magaalo ila magaalo kursiyaas saa u fadhiyay kursiga igu xiga waxa fadhida naag oo aan malaynay inay waxay ahayd dhulkan aasiyada ahayd meel hindi waxay muslim ma ahayn mid maraykan oo gaal oo cad ah geeska xagga dariishada xiga quraanka wardiga iska bilowday wardiga iska akhrisanay quraankayga yani hoos baan u akhristay cidna kuma dhibin cidna kii dariishada fadhiyay ee xagu shishay gaalki agta ka shishay ani ma badalinsani waxaan arkay ninkiyo dhagaha cuncunayaano saas uu leeyahay boodaya waa kacaya fariisa ma dambe bay naagti waxay ugu leedahay inta igu jisay ugu tiri maxaad samaynaysaa maxaa kaasaan quraan bana khasarey kalaamullah kalaamka rabbi kaasay tiri ninkan soo ma aragtay ninkan waa arkaa waxun baa cuncunaya oo boodaya oo kacaya waxay tiri waa arrintaada adiga wado please stop kan jooj waxaan adiga miyaad maqlaysa miyaan kugu dhibaya maya tiri laakiin isaga waa dhibtaysan yahay dhibbahay wax ku kacani ma garanayo wax yaraan joojiyay ninka waa iska fariistay waa degay quraankayga markuu noqdo waa socon soo dhan baa isla kacay dhagaha ka bood halka markaan ka baqayba inuu midda kale aniga ilama hadli karo wax la yaab leh aniga ilama hadli iyadu soo diray uu leeyahay iga musliminka سبحان الله الملك العلى القرآن سلاح عظيم إلهي وحو النسيه وحو بكراء الجرين والله الذي لا إله إلا هو هل حرف وكلام الله أيها كحب بدن قنابل ذرية بمباتون بك بيها لها وكحب بدن لكن آوي ذاتك باليقين أي قلبي وذا
arrintaas uga soo furi lahay